بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاك عقب حي وحوي هذا الكأبي أحمد فرين كسعة مدحوينها جمهورية ده يفرين كسعة وحوي رئيس السي وبقادين إيو تلبحين بيسوق شرتا مركا وحوي محاكرة دان كهر إنه فكلمة ده وحوي محاكرة هذا أبي أحمد طبعا وحوي محاكرة ذا كتاغن يهي rabitaankiisii dhulboobka ahaa ee uu doonayay inuu ku boobo waxa weeye maxaa ku dhahay dhulka dadka Soomaaliyeed isagoo ka faa'iideysanaya yacni waqtigan xasaasiga ah ee ummadda Soomaaliyeed ku jirto iyo kala daadsanaanta dhexdeeda waxa weeye maxaa ku dhahay arrintaas oo ah saddexdii dibiga caddaa iyo dibiga casaa iyo dibiga madooba waxa weeye maxaa ku dhahay bahalku libaax oo hadba mid cunayay qorshaheedii laga maartay maxaa ku halka ka arko maanta inay Soomaaliya ay tahay maalinta ay ugu jircsan tahay Ethiopian ay heli karto waxa ay doonayso waxa kale madaxweynaha ku dhaleeceeyay oo sheegay madaxweynuhu in aanay waxa weeye wax faa'iido ay ku jirin socdaalada faraha badan leh oo caalamka ku wareegayo iyo ashkatooyinka faraha badan leh oo caalamka ka dacweynayo waxa weeye arrintaasi waxa weeye maxaa ku dhahay laba dhinacba waa positive ay ka tahay dhinac positive bay ku tahay dhaqaalaha faraha badan leh ee maxaa ku dhahday ku baxaya socdaalada waa sax weey oo ku saxan yahay inuu yiraahdo oo cadowgeeni inoo sheego inay ka mudan tahay in iskuul lagu dhiso ama hooyo maxaa ku dhahay hooyooyinka baahan ee maxaa ku dhahay caruurta la daala dhacaya ee cudurradu halakeeyeen wax loogu qabto taas waxaan leeyahay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala madaxweynaha ku duwo ta kale oo ah waxa weeye maxaa ku dhahay iyadana waxa weeye uu isaga laftiisu xoogaa uu ishaarayay waxa kamid ah waxa weeye wadadii aad wax kaga dhacsan lahaydaan ma haysaan oo ah wadadii midnimada umad midaysin ma tiidin madaxdiinina ma rabto inay idin midayso oo madaxweynihiini meel kale u wareegaya halkii uu maxaa ku dhahay umadiisa midayn lahaa oo waxa weeye difaac u diyaar garayn lahaa isaga bay la shaqeynaya buu leeyahay isaga bay la shaqeynaya oo waxa weeye fursadahan maganaysa dahabiga maganaysa sameynaya arinta lafteedu waxa weeye waa arin positive ah oo runtii macquul ah marar badanna waan ka hadalay oo madaxweynaha waan u sheegnay madaxweyne wada qaldan baad ku socotaa adduunka cid wax xasuusiisa hadiyad wax xasuusiisa ma jirto cid caalamka waxa weeye Falastiin baa wax loo qaban lahaa waxa weeye maxaa ku dhada 100 sano ku dhawaad halka ka qaylinaysa waxa weeye maxaa ku dhada marka hadii cid hadal wax loogu qabanayo maanta waxaad arkaysaa waxa ka dhacay caalamka marka waxa weeye maxaa ku dhahay cid hadal wax kugu qabanaysa iyo maxaa ku dhahay qayladaan iyo maxaa ku dhahay dacwo iyo ma ay jirto laakiin waxa weeye maxaa ku dhahay waxa tahay dadkani waa dad isku filan inay istifaacaan dadka Soomaaliyeed waa dad isugu filan istifaaca waxaan ku leeyahay adeer gacaliya ku soo noqo waxa weeye wadada saxda ku soo noqo oo dadkaaga midee oo madaxda maamul goboleedyada isu keen oo dhaqanka isu keen oo culimada isu keen oo waxgaradka isu keen oo ummadda midee oo ummadda taladeeda qaado oo dadkani way iskaga filan yihiin inay dhulkooda difaacdaan xitaa kuwa waqooyi jooga ayaa diyaar u ah inay difaacaan waxa weeye dhulkooda laakiin xasan sheekh talaxumadaada iyo maxaa ku dhahday dayacaadaada ayaa melgaya dadka iyo dalka Soomaaliyeedba ee waxaan ku leeyahay soo noqo madaxweyne oo dadka dhageyso waa inta xun ee aad la tashanayso waxa weeye taladeeda dad wanaagsan oo ehlu aqliya oo aragti fog leh waadar gacaliya ku bedelo baan ku leenahay wallahi maxaan ku xaqiijinayaa meesha ay ku wadaan waa adiga waa hungo weeye adiguna waad ku hungoobaysaa ummadda Soomaaliyeedna waad ku halaagaysaa ee waxa weeye maxaa ku soo noqo waa xalay waxaan ku sheegay kilib yaraan soo duubay kursiga si qaloocan inaad ugu fadhido sida qaloocan aad ugu fadhidana waxa weeye ummaddan wixii aad u sheegtay ee ahay Soomaaliya heshiisa ee aad ugu dhaaratay ee aad kitaabka gacanta u saartay ee aad tiri waxaan ilaalinayaa wallahi waxa igu bilaahi waxa igu tollaahi inaan wadanka midnimadiisa iyo maxaa ku dhahay shacabka sharaftiisa iyo waxa weeye diinta maxaa ku dhahay inaan ilaalinayo ayaad ugu dhaartay ummadan dariiqi aad ku ilaalin lahayd dariiqi waad ka leexatay mana haysid madaxweyne marka waxaan ku leeyahay dariiqa ku soo noqo ilaahayna ha ku waafajiyo baan leeyahay reer SSC waxaan leeyahay waxaan bogaadinayaa wasaaradda waxbarashada waxa weeye maxaa ku dhahay shaqada fiican ay qabatay waxa weeye sida ay waxa weeye maxaa ku dhahay Dr. Safardus iyo maxaa ku dhahay wasiirka sida quruxda badan leh ay ugu adeegayaan bulshadooda waxaan leeyahay Allah idin barakeeyo wasaaradda amniga iyo wasaaradda maaliyadda waa bogaadinaya iyagana
وحوي دليلنا ويشرا رنتي وأمنه ولي ما سقنا وحوي دوان ما أركيا دواقيا سو قاريا مالية لفتي عشوره ما لبدن مقارن وحوي إنك صوبقي لما قرص لما يستري إنك صوب مقالة محاكرة لاسعانو دي مالك مقالو إنك غار عشورتي لقى بلابي لكن ولي عشورتي دول أنا قارن باشرتا أرنتاسنا أرن سحماها وحوي محاكرة أمني لفتيسا وحوي محاكرة هذا وحنو لا هاي ودين عايدة ليش كتشتا وحوي وسارد ملها لكن وحلا مامل كاله ودقن كاله وحوي بالشغل ودن باله سببته وحوي قفت لا وين لدلوي أمنيجا وحاوينا يا وسارة أمنيجا يا إذا ماذا محاكرة عسلينتا يا بوليسكا يا دما وحاوينا يا إن قفكي محاكرة قف دلا وحوي محاكرة لود دلو أو وحوي تيرك لجيو تا يا سهلة يا وحكستنا وحصلقوا وحوي محاكرة أمنيجا صلقوا أمنيجا هدو سقمو هرمركو ويمانا يا أمنيجو هدو سقمو وحوي محاكرة دقالوه كبعيا أمنيجو هدو صعدا سقمو وحبرشاد ولا جاريا أمنيجو هدو صعدا وحول بوح أصلوه أو هو يوا وأمنيجوي سأدرت وحن لا يعي وحوي محاكرة سنة يا دمان مدحلا محاكرة ده SSC يا محاكرة ده يا شعبا دقن يا علماء إن وحوي محاكرة ده قلب كا وحوي مكتب مقرن محاكرة ده لتشوشيو إلا يا أنت ما عملكوا سكحسلا يو oo waxa weey maxaa kula gaaraya deegaamada oo dhan oo waxa weey maxaa kula dadku ay maxaa kula dawladnimada fahmayaan waa in la joojiyo oo dawladdu ay maxaa kula qofkii tiirka la geeyo waxana leeyahay insha Allah hawlka madaal wali waa hogadii hawlaha socdeen dalku waxa weey maxaa kula waqti badan yaani hawlo badan baa wali qabya xaalad adag buu dalku ku jira xaalada adag waxa laga bixi karaa sharci adag iyo dadaal badan oo waxa weey sharciga waa in naxariis ku jirtaa sharci adag oo naxariis ku jirto oo naxariis ka madnayn iyo dadaal badan oo meel walba laga sameeyo oo waxa weey baa maganaysa maxaa kula ummadda loo gurmado oo wixii wax la tari karaba la taro sidaas ay noo balan insha Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.